محمد عيسى wuxuu leeyahay waxaan yani waqtigeyga badan ku qaatay waa qaylay markaas suxuurtii xilligii suxuurta waxay la dhaaftay qaylaadii maadaama marka wax un la cuni lahaa xilligii suxuurta oo la suxuro lahaa ma problema ama dhibaato hadaan jaadkayga iska waton ku suxurto horta waa su'aal cajiib yani in jaad lagu suxurto yani suxuur ma noqonaa mise ma noqonaa horta jaad cunto ma ah wax lagu suxuurtana ma ah weliba ramadaanka fursad wuxuu yahay dadka jaadka cuna maadaama maalinka dhan ay sooman yihiin inay iskaga gooyaan oo ay iska joojiyaan maadaama dhibaatada jaadku ay badan tahay oo qofka caafimaadkiisana aan u fiicnayn xoolihiisana aan u fiicnayn caruurtiisa iyo reerkiisana aysan u fiicnayn marka jaadka asoo sidiisaba u xumaa haddana inuu qofku yani uu ku gaaro ilaa yani suxuurtii inuu jaad u fadhiyo qofkaas yani ramadaanka wixii loogu talagalay iyo inuu ka faa'iideysto muuna ka faa'iideysanin marka saas daraadeed jaad wax lagu suxuurta ma ahe waxaan kula talin lahayn qofkaas inuu soo weydiiyey fursad u qaado inaad ramadaanka jaadka isaga dayso maxaa yeelay jaadku dhibkiisa ayaa badan suxuurna ma noqonayo jaad oo yani oo nacfi leh oo qofkii wax u taraya maaha waa wax balwad ah oo qofka cunaa xataa isaga way la tagtay oo wuxuu ku leeyahay iskama dayn karo haddii la yidhaahdo ilmahaaga yararka inay cunaan oo balwad yeeshaan say kula tahay wuxuu leeyahay maya caruurtayda inay dugsi quraan iyo dhigtaan oo iskool iyo dhigtaan oo wax ay bartaan oo jaad cunin ayaan jecelahay marka waxaan inuu xun yahay uu u jeedaa oo waxuusan caruurtiisa u ogolaanaynin waa xumaan oo qaba daraaddeed inuu ugu diidayo marka saas daraadeed waa qof yani jaadka dilooday oo ilaa yani soonkiiba dadkii salaatuliilka tukan lahaa ee cibaadaysan lahaa intuu iska qayraad u fadhiyo lahay baan ilaa waxaan ku gaaray xilliga suxuurta ee asaga ku joogsan karaayo asaga suxuurta bedelkeedii ma ii noqonaya marka wax la barakayni nabi sallallahu alayhi wasallam tasaxaru fa inna fi suxuri barako yiri maayna jaada la isu barakaynaya oo dhibka uu leeyahay jaadka la ogsoon yahay halkaas barako kuma jirto walaalkaas waxaan kula talin lahaa inuu suxuurna ka dhiganin asaga dhan uu iska daayo ilaahayna waxaan uga baryaynaa inta isticmaasha dhib ayuu ku haaya weyn ogyiin ayaguna dhib ku haaya inuu ilaahay ka madoobeeyo si ummadeenu ay u noqoto dhaqaalaheedana ugu kobco caafimaadkoodana u wanaagsanaado